suuqan qofka markuu ku cusub yahay waxaa la rabaa inuu kalluun ku jiro sidan baa loo ogaadaa farqiga u dhaxeeya jaanisyada ama fursadaha ka furan suuqan runtii fursado aad iyo aad u badan ayaa ka furan qofka tusaale ahaan raba inuu noqdo kalluumaysato oo raba inuu badda kalluumaysto. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu saaxiibayaal, soo dhawaada mar kale iyo muuqaal kale. muuqaalkeena maantay wuxuu ku saabsan yahay fahamka guud ee suuqa cryptocurrency. markaan ka hadlayno fahamka guud ee suuqa cryptocurrency, runtii waa muhiim inaan fahanno sida uu suuqan u shaqeeyo, fursadaha iyo jaanisada ku gadaaman. in badan waxaan aragnaa dadku markay ku cusub yihiin suuqa ama markii ay ku jiraan waxyaabo qaldan ayay aaminaan. muuqaalkan waxaa kaga bogo doontaa si aad uga hortagi lahayd fikradaha qaldan ee suuqa lagaa siiyey ama kuwa aad ka aaminsantahay adigaba. su-aasha ugu horreysa haddaan sa fiirino marka horta suuqan siduu u shaqeeyaa. suuqan qaabku u shaqeeyo waa qaab ka duwan suuqyada caadiga ah ama suuqyada digitalka labadaba. markaan fiirino suuqyada digitalka markaan ku leeyahay waa dhinaca forexta ama stock marketka, waa suuq ka duwan suuqyadaas fursad ahaan iyo qaabka u shaqeeyahay intaa markaan fiirino. marka waxaan rabnaa maadaama suuqan uu ka duwan yahay suuqyadaas inaan faham dhaba ka qaadano qaabka u shaqeynayo. qofka markii uu fahmo waxa uu ka shaqaysanayo sida u shaqeeyaan waxaa fududaanaysa inuu ka faa'iideysto jaanisada furan. su-aasha labaad marka muhiimka waxaa waaye maxaa laga rabaa qofka soo gelaya suuqan. qofka soo gelaya suuqan waxaa laga rabaa inuu ku dhiiranaado ama inuu ogsoonaado suuqan inuu yahay suuq fursado fiican leh oo haddii loo maro waddooyinka saxda ah. su-aasha kale marka muhiimka ah aan rabno inaan fahanno waxaa waaye maxaa laga rabaa qofka soo gelaya suuqan. qofka soo gelaya suuqan waxaa laga rabaa inuu haysto faham saxa. muxuu faham saxa ka qaadanayaa? sida suuqan u shaqeeyo, waxa uu yahay, qaabka uga faa'iideysan karo, waxyaabahaasoo dhan inuu ka haysto faham saxa. haddii qofku marku uusan faham saxa haysan runtii waxaa ku adkaa doonta inuu si dhaba uga faa'iideysto fursadaha suuqan yaala. waxyaabaha cajaa'ibka leh waxaa ka mid ah qofka markii uu suuqa soo gelayo wuxuu ku soo galaa wax la soo yiri ama wax uu maqlay ayuu ku yidhaahdaa. 90% ma samayno baaritaan saxa ma samayno. qodobka muhiimka waxaa waaye dhinaca fikirka haddaan fiirino qofka Soomaaliga ah mentality-ga oo suuqan ku fiiriyo waa mentality runtii aad iyo aad u hooseysa. suuqan ma ahan keliya suuq maanta lacag yar laga shaqaysto laga tago, ma ahan, waa ka wen yahay. waa suuq yacni runtii aad iyo aad u ballaaran. waa business ayaan dhihi karnaa ama digital business ayaan dhihi karnaa. businesska markaan joogno ama ganacsigaba wuxuu u baahan yahay runtii in si xeel dheer aan uga fikirno. suuqan marka qofka yimaada ee maantay ka qabso u yimaada aad buu u qaldan yahay. waxaan rabaa fikradaha noocaasa inaan bedelno ama meesha ka saarno. mar walba oo qofku ku dhiiran yahay ama fahamsan yahay waxa ka horeeya waa mar walba oo taxadirkiisu badan yahay. suuqan qofku markuu ku cusub yahay waxaa la rabaa wadiiqadaha ama waddooyinka ugu sahlan ee uu maaragtay kaga ganacsan karo inuu fahmo. tusaale ahaan qofka maxaa u fudud? qofka ma inuu trader noqdo u fudud? ma inuu investor noqdo u fudud? okay, haddii qofku investor aado kale inuu dulqaadkeeda leeyahay ayadana waa muhiim. haddii marka qofkan oo asaguna tradingka u fudud yahay waa inuu tradingka uga shaqaystaa. marka muhiimadda guud marka waxay tahay in suuqan marka u horeysa aadan ka fekerin lacag ee kow aad ka fekertid warniyo waxaan aqoontiisa soo hel. tusaale ahaan haddii qof gaari loo gado oo la yidhaahdo niyo gaarigan adaa iskala wado uusan wada aqoonin, maxaa ka dhalanaya? inuu kow naftiisa riski geliyo, hantida uu wada riski geliyo, 3 inuu maaragtay bey'ada ama deegaanka ama dadka uu riski geliyo. waxa keenayaan waa aqoon la'aanta. marka qofku haduusan suuqan aqoon u lahayn runtii aad iyo aad ayuu u wareeri doonaa. marka qofku waa inuu fahmaa wax uu ka shaqaysanayo, kadib waxaa u fududaanaysa inuu suuqi lacag ka sameeyo. qodobka noogu dambeeya waxaa waaye jaanisyada ama fursadaha ka furan suuqan. suuqan runtii fursado aad iyo aad u badan ayaa ka furan. dhaqaale ahaanna qofka wuxuu ku soo celin karaa dakhli fara badan ama sanadkii ama bishii, qaabka suuq qofku ugu jira ku xiranta. marka waxaa ka horeyda qofku inuu fahmo fursadahan meesha yaalla sida looga faa'iideysto. qofka tusaale ahaan raba inuu noqdo kalluumaysato oo raba inuu badda kalluumaysto, haddii la yidhaahdo inta badda la keeno la yidhahdo kalluun soo qabso
iyo haddii la yidhahdo inuu kalluunka sidaan iyo sidaan baa loo qabsadaa shabaqa sidaan baa loo toogtaa inuu kalluun ku jiro sidaan baa loo ogaadaa farqigaa u dhexeeya qofka marna wixii ma yaqaano marna uu yaqaano marka maalinkii qofkan kalluumsatada la baray sida kalluun ku soo qabsado way sahlanta inuu soo qabsado laakiin maalinkii badanta dulkeen la yidhahdo kalluun soo qabso way ku adkaanaysaa marka qofka raba inuu suuqan lacag ka sameeyo aqoontiisa aan lahayn oo qofka kalluumaysatada ah ee aan weligiis la barin sida loo kalluumaysto rabana inuu kalluun soo qabsado waxaan ku daarmayaa haddii aad ku cusub tahay suuqan fadlan muuqaalada oo maaragtay in badan looga hadlaayo kiribtada daawo waxyaabaha maaragtay dadka kaga horreeyay ka hadlayaan dhageyso dadka haddii aad taqaanid qof suuqan ku jira oo aad maaragtay isku deegaantiin fadlan la kulan tala bixin weydiiso mar walba oo qofka waxa uu maaragtay doonayo dadkii ugu horreeyay uu ka wareysto waa mar walba oo turxaan bixin ka helo aayadda qur-aanka waxay ahayd fas'aluu ahla adikr marka waxaan rabnaa qofka suuqan soo galaya inuu soo galo asagoo fahamsan asagoo dhisan isagoo yaqaana wax uu ka shaqaysanayo aad ma santihiin muuqaalka like saar saaxiibada la wadaag youtube-kana subscribe saaro gambaraalkan furo si ay kuu soo dhacaan muuqaalada joogtada ay halkan soo dhigo